wuxuu mashruuciisa ganacsi ku bilaabay lacag aad u yar oo 3 qarshi ah lacagta dalkiisa Suudaan una dhiganta qiyaastii 3 shilin Soomaali asigoo 3daasi qarshi ku iibsaday kiilo liin dhanaan ah kadibna inta meel fariistay dib ugu sii iibiyay dadweynihii wuxuuna ka macaashay liintii 15 qarshi tilaabo labaad ayuu hore u qaaday wuxuuna gatay dameer uu badeecadiisa ku daabulo muddo kadibna waxaa ballaartay ganacsigiisa wuxuuna noqday ganacsado weyn oo macruuf ka ah gudaha dalkiisa Suudaan iyo dibaddiisaba haddaba waa kuma milyaneerkani reer Suudaan ee samafalka badan ninkani waxaa lagu magacaabaa Baabakar Xaamud Muuse wuxuuna ku dhashay kuna barbaaray tuulo yar oo lagu magacaabo Jubay Deen oo ka tirsan mandiqada Jumuuciya wuxuuna ka soo jeeday qoys xoolo dhaqato iyo beerley ah waxaana ka mid ahaa xoolaha reerka ay dhaqanayeen ido iyo geel deegaankanna wuxuu ahaa meel noloshiisa aad u hooseyso kama jirin waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah sida waxbarashada caafimaadka bulshada qaar waa xoolo dhaqato qaar kalena waa beerley oo subaxii beer qodashada u ka lahaa halkaani kama jirin xilligaasi nolosha hadda ka jirta ma lahayn warshado goobo ganacsi isbitaallo iyo iskuullo nasiib darro Baabakar ma helin waxbarasho dhammaystiran xataa waxa uu suurageli waayay in uu helo waxbarasho dhammaystiran oo dugsi hoose ah laakiin nasiib wanaag waxa uu suura galay riyo uu lahaa yaraantiisii oo ahayd marka uu weynaado in uu noqdo qof hodan ah oo xoolo badan haysta wuxuuna ganacsigiisa ka bilaabay sida aan hore u sheegay 3 qarshi oo ay siiyeen qoyskiisa 3daasi qarshi ayuu kiilo liin dhanaan ah ku iibsaday kadibna bulshadii ayuu liintii ka sii iibiyay si tafaariiq ah wuxuuna ka faa'iiday 15 qarshi tilaabo labaad ayuu qaaday oo wuxuu iibsaday dameer si uu badeecadiisa ugu daabulo sidaan ayuu Baabakar ku socday ilaa kolkii dambe uu noqday ganacsade caan ah oo wareega suuqa iyo beeraha qudaarta mar saddexaad ayuu Baabakar tilaabo qaaday wuxuuna galay suuqa maacuunta asigoona furtay dukaan yar oo lagu iibiyo alaabta guryaha sida saxuunta tarmuuska ama falaaska iyo koobabka shaaha lagu cabo laakiin suuqani Baabakar waa uu sii joogi waayay waayo wuxuu cadaadis adag kala kulmay maamulkii xilligaasi dalka ka talinayay haddaba Baabakar gibi ahaanba waa isaga baxay suuqa maacuunta wuxuuna u wareegay suuq waagaasi 70 macaash badan lahaa kaa oo ahaa sarifka lacagaha qalaad wuxuu Baabakar dukaan yar oo lagu sarrifo lacagaha qalaad ka ag furtay qabuuraha caanka ah ee Faaruq ee ku yaala gudaha magaalada caasimadda ah ee Khartoum laakiin ayaan darro muddo kadib goobtiisii ganacsi ee uu lacagaha qalaad ku sarrifayay albaabada ayaa la sugu dhuftay asigana xabsiga ayaa loo taxaabay xaaladiisa ayaa maalmahaasi ahayd mar la xiro iyo mar la soo daayo dhowr bilood ayuu shaqo la'aan ahaa laakiin markii dambe wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto ganacsigiisii hore wuxuuna aas-aasay shirkadda lagu magacaabo Babco taas oo dalka dibaddiisa ka keenta badeecado kala duwan sida bagaashka qalabka dhismaha iyo badeecooyin kale oo dalka laga rabo markii uu Baabakar guul mugle ka gaaray shirkaddiisa Babco iyo ganacsigiisa ayuu tilaabo kala qaaday wuxuuna sameeyay shirkaddiisa labaad ee maanta dalka Suudaan caanka ka ah ee lagu magacaabo Wadda Jabal magacan ayaa ah magac uu ku caan baxay ganacsade Baabakar Xaamud Muuse dhamaadkii 70 Baabakar wuxuu helay 1 milyan ee ugu horeeyay noloshiisa wuxuuna intaasi wixii ka dambeeyay bilaabay in uu sanad walbaba sanad ka dambeeya kor u sii kaco oo ay ziyaado hantidiisa Baabakar ayaa ku soo baxay nin aad ugu fiican dhanka xisaabta waxaana ogsoonahay in uu Baabakar dhamaysan dugsiga sare haddaba intuu ka keenay cilmigan waxaa Baabakar macallin u noqday oo xisaabta baray duruufaha adag ee nolosha ee ku gadaaman waayo wuxuu ahaa nin leh hami sare sidaas darteed hamigaasi ayaa Baabakar ku kalifay in uu barto cilmi walba uu ku horumarin karo ganacsigiisa wuxuuna ahaa Baabakar nin xal u raadiya caqabadaha ka hor imaada
ma ahayn qof carara markii ay mushkilad timaado. dhanka kale Baabakar ma uusan ahayn ganacsade baqiil ah oo agtiisa masaakiinta gaajada ku dubato, ee wuxuu ahaa samafale xoolihiisa ka bixiya sadaqada iyo sakada. sidaas darteed dadweynaha dalkiisa Suudaan aad ay u jeclaayeen maadaama uu ahaa nin gacan furan oo mar walbaba wax bixiya. haddaba tijaabada ninkani waxay noo cadaysay isla markaana noo sugtay in qofka leh hamiga sare xaalad walba iyo duruuf kasta oo adag uu ka gudbi karo haddii uu aaminsan yahay kartidiisa, naftiisana ku kalsoon yahay. dhanka kale guusha afaara qabiil iyo ma taqaano, waxay saaxiib iyo wada dhalasho wadaagaan oo ay isku dhiig yihiin qofka la imaado dadaal, shaqo adag iyo dulqaad joogto ah.